farmaajo qoray faallo isku difaacayo kuna weerarayo mucaaradka Jubbaland iyo Puntland madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa faallo uu ku qoray wargeyska lagu magacaabo Vorian Policy ayuu difaacay eedeymaha loo jeediyay ee la xiriira xukun jaceylka isagoona sidoo kale weerar afka ku qaaday mucaaradka ka kala taliya Kismaayo iyo Garowe waa Puntland iyo Jubbaland doorashada Soomaaliya dib ugama dhicin sabab la xiriira in aan xukunka ku dhaganaado sida dadka qaar oo been ah oo ay ku doodaan balse waxa dib u dhigay ismareegwaaga siyaasadeed oo keenay in la kala qaybsamo dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dawladaha xubnaha ka habkay hore loogu dhaqaaqi jiray ayuu yiri Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday waxa uu sheegay in xudunta khilaafka ay tahay in dawladdiisu ay doonayso doorasho toos ah oo qof iyo cod iyo kuwa doonaya doorasho aan toos ahayn oo awood siinaysa siyaasiyiinta una diidaysa shacabka caadiga iyo waliba codkooda waxa la gaaray xilliga ay beesha caalamka isweydiin lahayd maxaa shacabka Soomaaliyeed ay 4 sano kasto ay mar lahaystiyaal uga noqdaan odayaal qabaa'il iyo kooban iyo waliba madax maamul goboleed ayuu yiri Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in bishii June 2018 ay dawladdiisa iyo maamul goboleedyada isku raaceen doorasho qof iyo cod ase yeeshee taasi ay dhici weysay kadib markii dhammaan shanta dawlad goboleed ay ka baxeen heshiiskii iyagoo ka soo horjeeday in awoodda la siiyo shacabka sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxuu intaasi ku daray isagoo aad uga niyad jabsan taas dib loo galay wada xaajood isla markaana isku raacay hanaan doorasho oo aan toos ahayn 17 September 2020 taasi oo aqbalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hanaankan waxa uu burburiyay wax yar kadib markii hogaamiyaasha ka kala arimiya Garowe iyo Kismaayo waa Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdullaahi Deni iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo bishii November 2020 ku soo laabtay safar ay ku kala tageen Imaaraadka iyo Kenya oo lagu kala armiyo hogaamiyaashaasi oo ah labada dal ee Soomaaliya ee xiriir xooggan ay la leheen ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sheegay Farmaajo ismareegwaaga dheer kadib baarlamaanka uu meel mariyay sharci ah in dalka doorasho qof iyo cod laga qabto 2 sano gudahood taasi oo isaga uu saxiixay ase yeeshee buu yiri taasi waxa ka dhalatay carro xooggan oo ay sameeyeen mucaaradka iyo xubno kamid ah beesha caalamka taasi oo marar kala duwan dawladdiisa ay ku qabsatay sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu ku eedeeyay mucaaradka inay horiyeen rabshadihii ka dhacay Muqdisho ee ka dhashay go'aanka baarlamaanka waxa uu rabshadahaasi ku qeexay fursad ay ka faa'iideysanayeen kuwa horiyay dagaaladii Muqdisho ee soo martay waxa ugu dambeyn sheegay in mar kale bishan la isku dayi doono in la isku raaco heshiiskii laguna fuliyo hanaanka doorasho ee dalka oo toos aan ahayn iyadoo uu hogaaminayo Maxamed Xuseen Roble oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaana xaqiijin doona inuu noqdo hanaan loo dhan yahay oo doorasho uu hogaamiyo fursadda ugu horeeyay ee ugu macquulsan ayuu ku soo gabagabeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo faalo uu ku qoray wargeys lagu magacaabo Vorian Policy